Hi guys, meel baa joogtaan. Welcome back. Magacaygu waa Maax, kaasoo doonaya maanta inaad la wadaago cryptocurrency wax badan oo markaas quseeya macluumaad. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa waxa la dhahay scamiska ama kambaniyada scamka ah oo iska dhiga legit-ka sidee ku ogaan kartaa. Sidoo kale waxa waaye legit-na sidee ama procedure-ka ama nidaamkii oo maraysaa haddii aad rabto inaad ogaato. iyo kuwa big scamiska ah qaarkoodii already hore aan ugu dardaarmay asxaab badan si gooni ah oo la wadaageen ay maanta ay noqdeen kuwa shutdown ah. Shutdown micnaheedu waxa waaye all service-kii ay ku bixi jireen ay ka dansadeen, withdrawal ma jiro, wax lala bixi karo ma jiro, ma jiro, wax la helayo dakhli ma jiraan. Soomaali badanna ay ku khasaareen hantidooda ay geliyeen ayagoo markaas knowledge fiican u haysanin wax la dhahay scam iyo maxaa la dhahay legit. iyo sidoo kale oo golden rule oo loo isticmaalo marka la joogo cryptocurrency. goldenkaas rule ka saacidaya marka in aad ogaato marka la joogo investmentiga ama online aad lacag ka sameyso la adeegsado. haddii aad goldenkaas rule aad ogaatona ay ka saacidayso in markaas riskigaaga ama khatarahaaga marka la joogo cryptocurrency ama investmentigaba ku badbaadinayso. Marka tibkaas ugu dambeeyo at the end of the video, qaybta ugu dambeysa video idin la wadaagi doonaa. intaan video ka hor idin la wadaagin oo qaybta dambe la gaarin waxaa idin la wadaagi doonaa 10 qodobood aad ku ogaan karto kambaniyada scamka ah. haddii aad 10kaas qodobood 4 ka mid ah ku aragto, please investment company-gaas ku sameynin, waa company markaas scam ah. haddii aad 10ka aan kula wadaagi doonin ay noqdaan 10 oo sax ah, kambaniguna waxa uu sheeganayo 10kaas qodobood, kambanigaasna waa legit ah waaye, investment-na ku sameyn kartaa. adigoo marka investment ku sameynaysana waxaa jiro golden rule oo marka la joogo sharci ahaan loo isticmaalo investmentiga marka la joogo cryptocurrency-ga. qofka laga rabo inuu skills-kaas maskaxdiisa ku hayo asigoo markaas kambanigan research ku sameeyay hadduu yahay legit iyo hadduunan ahayn. marka intaanan gudagelin ka hor 10ka qodobood, haddii aad channelka ku cusub tahay please hada subscribe dheh. sidoo kale waxa waaye video-na like dheh. haddii aad markaasi ku cusub tahay channelkan hadda subscribe dheh, sidoo kale video like saar. haddii aad su'aalaha qabtana waxay la soo wadaagi kartaa Facebook-gayga. haddii aad markaas u baahan tahay tip iyo macluumaad oo cryptocurrency la xiriirana waxaan dhigaa Instagram-kayga. marka sidoo kale commentigana ha iloobin inaad markaas aadiyadaada iyo fikradaha nala wadaagto, maadaama aan ka hadli doono 10ka scamiska kuwa lagu ogaado iyo kuwa hadda oo example aan idinku soo qaadan doono scam ah, iyo kuwa hadda exam u sii socdo inay scam noqdaan, iyo kuwa already exam noqdeen aad la wadaagi doonaa. okay, intaan gudagelin ka hor sida hore idin sheego waa channelka hadda subscribe dheh intaanan hadhow aan iloobin si aan macluumaadka idin la wadaagi doono ama ku imaan doono videoyada cusub aad ugu faa'iideysato. okay, marka la joogo scamiska waxaa lagu ogaadaa kambaniyada scamka ah 10kan qodob aad idin la wadaagi doono. qodobka koowaad waxa waaye kambanigan waa inuu leeyahay product ama service waa inuu leeyahay. hadduuna kambanigan product ama service u lahayn waa scam. micnaheedu waxa waaye business walba waa inuu leeyahay product, wax soo saar waa inuu leeyahay ama adeeg uu leeyahay waaye uu faa'iido ka soo saarayo macaamiishiisa iyo dadka investment ku sameeyeen ay ka faa'iidayaan. tusaale kale qof kambaniga hadda mobile uu soo saaro, mobilekaas ayuu dadka lacagaha ka qaaday ay maalgashteen, mobilekaas marka la gadaa faa'iido la helaa. haddii service ay tahay kuwa hadda sameey ku dhahayaan oo kale mining sameeyna ama trading sameeyna, waa in trading-kooda service waaye oo khidmad ah. khidmadaasna waa inay service-ka ay qabanayaan waa inay bulshadooda la wadaagi karaan isbuucla ama maalin walba inay la wadaagi karaan, ay dhihi karaan daily profit intaana sameeyay intaana lose gareeyay inay dhihi karaan. kambani maalin walba ku dhahay faa'iido la soo saarayna khasaaro ma jirana kulli waxa waaye asigana kambanigaas kambani oo legit ma ahan, waa scam waaye, iska ilaali. waayo waxa waaye marka la joogo trading-kana waxa waaye 99% way ku guuleystaan dadka trading sameeya, 1% la faa'iidaa. halka la faa'iidayna waxa waaye percentage-ka ay bixinayaan ay ku leeyihiin oo percentage ah bixina ilaa 1.5. waa mid aad la wadaagi doono. waa midka saddexaad oo Soomaalidana aad u fahansaneen oo ah high yield investment program. waxaa loo yaqaanaa waa programmada oo bixiya percentage-yada waaweyn, iska ilaali. micnaheedu waxa waaye
caalamka waxaa la isku raacay in percentage ugu weyn la bixin karo ay tahay 1% ilaa iyo 2%. Company hadduu ku dhaho aniga waxaan bixiyaa 3 iyo 5 iyo 10 aan bixiyaa daily iyo wixii ka badan, companygaas waxa waaye waa scam waay. iyo kuwa qaar oo ku dhahayaa jiro 100 maalmood lacagta dib ugu soo celinaa, ayagana sidoo kale scam waay. iska ilaali, ma la isku halayn karo. waa companyada scamka ay ka mid yihiin ayagana. waxaa kaloo jiro qodobka saddexaad oo qodobka afraad ee la wadaagi doona ah xagee marka ay kasoo xiganaysa ama ay kasoo saarayaan faa'iidada. companigu waa inaad taqaanaa meesha faa'iidada ku soo saarayo. ma faa'iidada wuxuu ku soo saaraa trading ma ku soo saaraa ama mise product ku soo saaraa. waa inaad taqaanaa meesha faa'iidada ay ka soo galayso ama companigu faa'iido ku soo saarayo. qodobka kale oo shanaad ah waxa waaye daily report oo inuu companiga bixi karaa dadka maalgashada ah ama investment ku sameysteen. waa inuu daily report oo sii karaa ama weekly report, isbuuci oo kale ama bilow inuu report soo gudbiyaa oo dhahayo isbuucan dhaqaalaha soo maalgashateen intaan la faa'iiday. qof walba faa'iidadiisa waa uu helaa daily ah inuu accountkiisa uu ka dareemi karo. haddii marka account-kaaga oo aan ka dareemeynin, companygaasna uu ku meerinayo ama sidoo kale daily wax kuu siinaynin, iska ilaali asina companygaas waa scam. waxaa kaloo la fiiriyaa company qodobka lixaad, companygan waa inuu websitekiisa buildingkiisa aad u fiican yahay. kuwa qaarna waxaa buildingkooda way fiicnaysiiyaan laakiin waxooda sax ma ahan, waayo waxay wax kasoo qaadanayaan Google oo kale ee tagayaan oo resource ugu weyn ama search engine ugu weyn oo caalamka laga isticmaalo. company qaar oo legit ah miningkooda ay sawirada soo qaadanayaan iyo videoyada anaga mining sameeyna ku leeyihiin website-kooda ku qurxsanayaan. marka midkan waa laga wada sameeyay legitka iyo sidoo kale scamiska ah. marka ayadana waa inaad iska fiirisaa, laakiin midka zaa'idka loo fiirina uma badno. waxaa kaloo kamid qodobka lixaad in la bixitaan ay jirto iyo dad maalgashan inay tahay. way ka wada sameyn yihiin scamka legitka, way ka wada sameyn yihiin. marka waa inuu aad taqaanaa la bixitaanka iyo soo withdrawalka companigu uu sameynayo. waa inaa sidoo kale percentage uu companigu uu bixinayana oo waa inuu uu yahay wax ugu yar oo bixin karo iyo wax ugu badan oo bixin karo. binada waxa la jeedaa waxa la dhahayo fixed ma jiro. suuqan waxa waaye trade la sameeyaa, qataradiisa badan, faa'iido la soo saaraa, marna waxa waaye faa'iido la meelaha. companigu inuu markaas rate uu jiro minimum ah iyo mid ugu badan oo maximum ah. tusaale kale companigu ku dhaca 1% ama walba bixina minimum keena waa, laakiin meesha ugu badan waxa bixina 1.5. binada waxa suuqa markuu faa'iido leeyahay 1.5 ku siinaa. hadduu faa'iido suuqa wuxuu yahay 1% dib u soo noqonaa. waa in kaasoo kale inuu jira. laakiin qof ku dhahay 10% bixina maalin walba hadduu suuqana khasaar hadduu suuqu fiicnaadaba labadaba 10% bixina, ayagana waa iska ilaali. waayo waxa waaye halistiisa badan, waayo suuqan boqolkiiba 9 waa la khasaaraa, 1 ayaa la faa'iidaa marka la joogo trade-ka. qodobka 8 waxa waaye waa in aad ogtahay hadafka companiga uu leeyahay, macnaha design-ka ama qorshaha u degsan companigan hadafka uu leeyahay. waa inaad ogtahay 5 years miya 1 years miya. kuwa qaar waxaa jira company qaar oo 5 years iyo 10 years oo degsanaya qorsho, iyo kuwa qaar waxaa jira program aad u weyn bixinayaan oo 10% iyo 25%. haddana companiga 6 bil iyo sanad wax ka yar uu shaqeynaa. macnaheedu waxa macmiil badan inoo sameysto raba hadhow website-ka uu ka xirto iyo meelaha withdrawalka ay ku sameynayaan. waa ina dhacday, waa ina jiraan. tusaalahan waa idin wadaagi doonaa companyada noocaas sameeyeen. waxaa kaloo jiro suitable ma leeyahay companigan ma la isku halayn karaa, maadaama laakiin online marka la joogo wax la isku halaynaya aysan jirin. qaacido oo golden rule la jiro oo la isticmaalo idin wadaagi doonaa. waa iska fiirinay. isoo kale waxa waaye faa'iidooyinka uu markaas bixinayo companiga maalin walba uu bixinayo waa ina ayada og tahay oo mid mucayan ay tahay. marka waxaa jiro golden rule oo intaas lagu badbaado ah marka la joogo investmentiga. only investment you can afford to lose, oo MBA saaranaysiina muhiim ah. kaliya maalgasho waxa lacag adigu aan ka maarmin waa lacag walwal ay kugu hayso 5,000 haysato 5,000 online la soo aadin 1,000 camal la soo aad. haddii 1,000 haysatana 500 camal la soo aad si hadhow 500 ugu badbaado. haddaa 5,000 haysatana 1,000 ugu badbaado. marka companyada oo scam ka noqday hadda idin la wadaag waxaa kamid ah oo hadda xataa scam ay noqdeen ASW Money kamid ah oo scam aad u weyn waaye. withdrawalkooda way xirteen, systemkana way xirteen. sababtu waxay tahay CEO lama yaqaano, team professional lama yaqaano, meesha product ka soo saaraya. tobanka idin sheego qodob haddaad fiirisaan companigu sax kuma ahan
intaasoo su-aalood ama 10kaas qodobood kama jawaabi karo kambaniga, reportna sax ah laguma hayo. cid markaas su-aalahaasi oo 10ka idinla wadaagin sax u helaysa ma jirto. saas awgeed kambanigaas scam oo cad ah waaye. haddii aad hore u maalgashatay forget lacagtaada ilow. haddii aad hadda doonaysay inaad maalgashatana already kambanigan scam waaye, iska ilaali. waxaa kaloo jira kambaniga loo yaqaano capital, isna waxa waaye scam waaye. sababtu waxay tahay waxa uu bixinayo ayaa waxay yihiin 10kii qodobo idin sheegayo oo ah aad u weyn yahay. the CEO team professional lama yaqaano inta qodobo hadda idin la soo wadaagayo. dadka maalgashta way maalgashteen, laakiin kambanigan scam oo cad ah waaye. hadda isnaftiisa xataa withdrawalkii iyo wixii dhan website-kii wuu xirtay. cid maanta wax la bixi karto ma jirto. waa scam labaad waaye. waxaa kaloo jiro kambanigan loo yaqaano investment.24 oo asin hadda idin la wadaagayo. kambaniga Soomaali badan hadda investment ku sameeyay. kambanigaas asna scam waaye. haddii uu hadda withdrawal ama systemku uu shaqeynayna inta kala karta kala soo bax. kambani suitable kuma aha. 10kan qodob idin la wadaagin jawaab looguma helayo. waxaa ugu dambeyn oo hadda shaqeynayo active ah laakiin still process oo ku socda scam waxaa kamid ah FX Trade. FX Trade dadka maalgashtay kambanigaas ilaa hadda still wuu shaqeynaa, laakiin 10ka qodobooda idin la wadaagi intoodaba wax waaye jawaab sax ah looma heli karo. marka laga reebo ilaa 6 iyo 4 oo jawaab sax loo helayo. kuwa aan loo helin maxaa kamid CEO lama yaqaano. tusaale kale dadka kambaniga iska leh asigoo social media soo istaagayo su-aal la weydiinayo oo wax systemkiisa iyo businesskiisa quseeyo ma jiro. haddii team ay yihiin koox ay ku leeyihiin kooxdana lama yaqaano. laakiin bal waxay dhahdaan kooxan waa Japanese waaye, marka exactly loo tixraacana waxa waaye sax ma ahan. sidoo kale waxa waaye waxa ay sheeganayaan kama rumaynin oo micnaheedu waxay tahay waxay dhahan waxaan faa'iido ka soo saarnaa ama faa'iidada aan ka soo saarnaa wax la dhahayo robot waxaan loo sameeyay mining ama trading loo sameeyay. robotka trading sameynayna inay na tusiyaan oo la arkana micnaheedu waxa waaye marawaan. waayo dad waxaa jira network marketers oo diyaar u ah in qof ka mid ah ticket iyo visa ay ka bixiyaan oo soo arko haddii ay sax ay tahay ama haddii ay sax ahayn teamka ama softwareka sameynaya tradingka sameynaya. ayna qodobkaas kale ka mid ah. hadda laakiin still xogaa way shaqeynayaan maadaama ay cusub yihiin. waxaa rabaa dad badan inay kusoo jangarayaan kambaniga. qodobka idin sheegay ka mid yahay vision ama aragti fog ah 10 years 5 years ma lahan. marka sababtaasaa marka ka mid ah kambaniga oonan u shaqeynaynin mustaqbalka. waa idin arki doontiin insha Allah. kambaniga hadduu shaqeeyo 1 year ilaa 2 year ka badan ma shaqeyn karo. sababtu waxay tahay 10ka qodob idin sheegayo oo dhan answer looma hayo. scam oo cad ah waaye. FX Trade research waa ku sameyn kartaa. 10 qodob idin sheegayna waa ka fiirin kartaa. akhyaare dadka ani daawanayo oo legit rabo ama business legit-ka ah ha iska ilaaliyaan FX Trade. waa for journal ID ama idin la wadaagayo. haddii aad iska ilaalin karin kaliya waxaa isticmaashaa golden rule-ka ana isticmaalo ah only invest what you can afford to lose. lacaga adig ka maarmi karti aanan ka mid ahayn lacagaha biilkaaga, shaqadaada, ciyaalka waxay isticmaalayaan. adiga waxaa koronto iskaga bixinaysa, waxaa adiga gaarraac kuu noqonayo, wixii cuntadaada ah lacag oo noocaas ah iyo deyn ha isku galin. hana la soo aadin online-ka. ana hadda idin la hadlaayana ma la soo aado. kaliya lacaga ani ka maarmo ayaa online-kan ku maalgashtaa. kaasaana profit ka sameeyaa. kuwa hadda aan ku jirana ayaga naftigooda legit waaye. waa ay shaqeeyaan oo sax waaye. 2017 bilaabay 2017 ilaa still waa shaqeynayaan. haddana idoo saas ay tahay shaqeynayaan ayaa waxaa isticmaalaa qaacidada golden rule-ka ah only invest what you can afford to lose. lacag kaliya aan ka maarmo ayaa gashtaa. programmadaas oo legit-ka ana ila ah hadina insha Allah research ku sameyn doonteen video xiga idin la wadaagi doonaa. stay tuned. sidoo kale haddii ajana ka cusub tahay subscribe dheh. sidoo kale like saar videogan. guys meel baa joogtaan video inta ku kulmi doona. bye bye.